Asalaamu calaykum asxaab isu soo noqosho wanaagsan. Maanta waxaan idinla wadayaa video kale oo ku saabsan jilba xanuunka. Dhowr video hore uga soo hadlay oo part 1 iyo part 2 iyo part 3. Maanta waxaan idinla wadaagayaa part 4 jilba xanuunka qaybtiisii afraad. Marka qaybtan waxaan rabaa inaan uga hadlo waxa loo yaqaano Baker cyst. Baker cyst waa maxay? Baker cyst waa burobiyood xagasha dambe ku taala jilibka qaybtiisa dambe, tulux yar oo laga dareemayo waaye. Marka waa fluid yar ama dhaxan yar oo meesha isku aruursan, buro oo tumor ma ahan, waa burobiyooda la yiraahdaa. Dadka qaar weligeed ma baadar garaydo ma dhibto meeshaas isaga taala. Marmarka qaar waxaa laga yaabaa sanado adoo arkaydo sin weligeed wax xanuun kugu keenin inay sii bararto. Markay sii barartan neerfayaal iyo structures kale oo badan oo muhiim ah meeshaas ku jiray ciriiri gelinaysa. Ciriirigaas wuxuu keenaa marka inaad jilibka qaybtiisa hore xanuun ka dareento, lugta hoos xataa barar marmarka qaar aad ka dareento, jilibka oo dhan ku xanuuno, aad soo laabi weydo, istaaga ku dhibo, socodka ku dhibo. Marka raajo lagu diro lagu yiraahdo laf kuma jabno, rheumatism kuma haydo, waxba kuma hayaan. Sababtoo ah waa barar gadaal ka yimid oo xagasha dambe ku dhex qarsan waaye. Waa Baker cyst la yiraahdaa. waxa ugu weyn oo lagu ogaadaa waa MRI lagu ogaadaa. MRI-ga markii la saaro waxaa la arkaa inta ay la eg tahay bararkaas. Waxa kaloo lagu ogaadaa inay jirto oo burobiyoodkaas meesha ku jirto. Kaliya laguma ogaadaa, waxaa kaloo lagu ogaadaa cabirkeedu inta uu yahay, ma wax yariis ah ama wax weyn ah. Marka sida loola tacaamulayo iyo treatment-keeduna wuxuu ku xiran yahay hadba inta ay la eg tahay. Hadday aad u weyn tahay, procedure lagu sameeyo meesha looga baxayo dhacaankaas looga saaraa jirta. hadday wax yaroo iska tahana waxa waa kaalmaatiyo iyo physiotherapy iyo inta la siiyay maaragtay ay iska degto oo inflammationkaas wixii soo kacaya ka dega. Dadka qaar taagnaan badan iyo orod iyo waxyaalo ay sameeyaan ku soo kiciya. Marka laga yaabo inaad leeyahay 20 sano ay kuugu jirto meesha, laakiin si weligeed ku dhibinoodan ma ogaanba. marmarka qaar labada xagloodba waa uga jirtaa dadka, marmarka qaarna waa hal meel oo hal jilib ay ku jirtaa. Baker cyst la yiraahdo waa cyst ama burobiyood waxaan u naqaano. Marka waa qayb afraad oo keeni karta. Waxaan fiidiyoda kula wadaagayaa waxyaalaha keeni kara jilba xanuunka oo aan soo koobaynay. Marka Baker cyst waa qayb ka mid ah ama burobiyoodkaas xagasha ku taala. Marka haddana waxaan u gudbaynaa inaan idin tuso picture-deedii iyo sida ay u taalo. Isla socosho wanaagsan. Marka haddaan idin tuso iyadoo image Baker cyst waa maxay? Baker cyst waa popliteal fossa cyst waa loo yaqaanaa waa fluid lump. sida hore idinkugu soo sheegay the back of the knee oo jilibka dhabarkiisa dambe ku taala. Marka sidaad ka arkaydiin labada jilib dadka qaar labada jilibba way gashaa, dadka qaarna waa hal jilib. waa qaybta yar oo bararka jilibka dhabarkiisa ku taala. meeshan waxaa loo yaqaanaa human anatomy-ga popliteal fossa la meeshan waa very important structures ayaa mara oo waxa waa tibial nerve iyo fibular nerve oo sciatic nerve branch-yadiisa iyo blood vessels badanaa mara. marka ciriiriyay gelinaysaa neerfayaashaas iyo xiddada dhiigga qaada. bararku saas uu sii ballaaranaya. marka kadib jilibku qaybtiisa hore oo frontiga ama wejiga hore u tagaa. marka calaamadaha waxaa ka mid ah knee or leg pain, xataa lugta hoose iyo kaafka waa xanuun ka dareemi kartaa. tightness iyo stiffness iyo inay xoogaa ku cuncunto ay keento difficult to bend in the knee. jilibka inaad laabto marmarka qaar dhib noqonaya. clicking sounds waa leedahay, waa laga maqlaa. haddaan visuals kale aan idin tuso, waa kaas dadka qaar way weyn tahay oo macnaha si oo superficial ah kor looga arki karaa. labada macnaha jilibka qof kula tusaale waatan. dadka qaar waa hal mid, dadka qaar way soo buuran tahay, dadka qaar way ballaaran tahay oo xagasho dhan ay ku jiiftaa. marka waa very common. Baker cyst waa very common. tumor caadiya ma aha, waa cyst ama burobiyoodka waxaan u naqaano sida hore usoo sheegay. marka waxa waaye markay noqoto management-geeduna waxyaala badan MRI-ga markii laga fiirinayo waa taas measurement-ii leedahay, cabirkeedu intuu yahay la ogaadaa inay weyntii in kala dimensions-keeda. MRI-ga sidaasay u taallaa markaad picture-keeda ka aragto. marka ay noqoto non-surgical options, rest inuu qofku nasto oo uu maaragtay taagnaantii badneed iyo sideeda maba soo kacdo waxbaa soo kiciya. dadka qaar way iska leeyihiin meeshaasi iska fadhidaa, mana dhibna kuma haydo. macnaha marmar bay damqanaysaa wax soo kicinayaan. marka inuu nasiino iyo baraf iyo inuu saarsaaro. physiotherapy waa option. non-steroid inflammatory medication oo daawooyinka oo medicationka oo xanuunbaabiyaasha iyo kaalmaatiga. dadka qaar injections lagu dhiftaa xanuunbaabiya oo jilibka oo dhan hadday aad u saamayday. aspirationkana waa drainage, waa in macnaha marmarka qaar waxay sameeyaan procedure oo dhacaankaas looga soo dhuuqayo looga soo saarayo.
marka waxyaalahaas oo dhan waa treatment option oo maaragtay laakiin waxay ku xiran tahay hadba inta ay leeg tahay, ma weyn tahay, ma yar tahay, sizekeedu maaragta markii MRI-ga laga arkaa dimensionskeedu intuu leegyahay, taasay ku xirnaa doontaa treatment optionskeedu. muhiimadan haddaan idinla wadaagaya waxay tahay inaad ogaatiin jilba xanuunka inay jiraan optiono badan, waxyaalo badan oo jilba xanuunka keeni kara. Baker cyst ama burabiyoodkaas yar oo jilba xagasha dambe uga taalla waa mid ka mid a waxyaalaha keeni kara jilba xanuunka. marka qofku isagoon ba xataa dhakhtar u tegin u arki karaa taas xagashiisa dambe may bararan tahay, butux yar ma ku jirtaa mise waa caadi. haddaan dib ugu soo laabano jilba xanuunka fiidiyadii aan ka duubay kana ugu horreeyay oo rheumatismada ka hadlayay, ku celiyo part 1 jilba xanuunka, kana ku xigo ACL tearka xididka ah waa kaas isaguna, kan u dambeeyo part 3 ahaayo meniscalka ama cingariga u dhexeeya labada lafood oo dilaacaan uga hadlay kana. marka kan hadda aan oo part 4 kaanan hadda idin tusayna waxaa la yidhahdaa Baker cyst. marka waa fideogii afraad oo la xiriira jilba xanuunka, ayagoo dhanna waxaad ka daawan kartaa YouTube-ka Dr. Hashi Network, loogadiisu sidaasay u taallaa. markaad soo gasho inaad subscribe tiraadana ha hilmaamin. aad iyo aad u mahadsantihiin. salaamu calaykum.